السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وحنا هرفض وولاشين دقة وحاد نقدا ونسان وجنال كينا طبط توصل أصحابتي أنتي هورين ولسه جوكتوا حالنا عيسى شرفكم ولا هذا أنت نقول عصبنا وحالنا قاع مفرن iyo walaalani jecel ma sha Allah ku soo dhawaadaan leeyahay waxaan maanta halkan u soo fadhiistay inaad jawaabta dhamaantiin aad gaarsiisaan oo message-ka aan halkaas soo dhigayo amba videogeygaas la gaarsiiyo Sadruddin waan arkay maanta dhan horta sidaad ogtihiinba xafsa waa gabadh yar oo naqan wallahi billahi waxaan aakhira la tagayaayo oo magaca ilaahay aan halka dhaar ku maraya xafsa haday xun tahay iyo haday wanaagsan tahayba inay tahay gabadh daacad oo halka ka nadiifa wallahi billahi da waaye xafsa haday tahay naaq aqli leh oo khaayinimada taqaana oo xumaanta taqaana oo iska dabuureega taqaana oo isbadbedelka taqaana haday tahay ninkaas may soo fadhiiseen ba YouTube-ka ya YouTube-ka may soo fadhiiseen markay tiraahdo waar inaagayso ya oo wixii naag laga bixinay reerkayga u geey oo wixiisa ka qaado ya oo iyadu faa'iido qabto ayay ninka halka soo fadhiisan lahayd haduu socdana de qof dhintaaba laga samraa way ka samri lahayd laakiin wallahi waxa aniga maanta qalbiga i xanuuniyay een ka fadhini waay een ka seexan waay waxay tahay ninka sidii maska intuu guriga gabadha soo galay ya oo sariirteedii saa ugu la dul fadhiistay oo haddana maanta intuu halka video la soo fadhiistay wallahi xafsa wanaag baan xafsa u hayaay gabadh fiican bay ahayd gabadh fiican haday ahayd maxaad uga tagtay war gabadh fiican haday ahayd waaba gabadh fiican oo xafsa anagoona aqoon u lahayn ya wallahi billahi u qiraaya anagoona xafsa garanayno maalin wallahi bakeeri biyo aan wada cabin ya u qiraaya gabadhaas inay gabadh wanaagsan ya ay tahay oo laakiin si ku galgalatay aan weydiiyay horta waxa su'aal isweydiis meesha taala ah wiilkani sawkii gabadhu ay cajabisay ee wanaagsanayd ee gurigeega uu la joogay ee xafsa shankaroonta u hayay maxaa ku dhacay ya wallahi billahi waxa la yiri qalbigeyga garanay ninkaas habeenkii ugu horeeyay gabadhaas daacadii ay meesha soo fadhiisay inuu u socdo subscribe inuu gabadhaas just u ku xidhayna wallahi xafsa way soo hadli doontaay ana xafsa hada telefoonna kama hay qof aan oranayo waan is wareysano warka iyada ay sheegtayna ma ahino bulshada ayaa ka marxaatiya soo xad garateen ma wallahi laakiin si suma wallahi saddex jeer waxa ugu dhaaranaya inuu ninkaasi uu gabadhaas ka yiri hadaad rabto inaan isguursano inaad i jeceshahay ituso social media ay soo fadhiisiyo channelkayga subscribe hala isaaro wallahi bila maalintu ogaaday inay 50,000 oo qof ay ka soo raacdo subscribe-na gabadhii wuxuu ka yiri assalaamu calaykum uu ka yiri laakiin se waxaan ku yiri waxan waa adduun 5,000 iyo 50,000 oo subscribe wada heshay qof wanaagsan ku noqon mayso ya ma garatay wanaag iyo waxa aad ku hesho ayaa barakooba laakiin waxaad khaayinimo iyo qalbigaaga ogaa inaanad gabadhaas rabin ya oo subscribe iyo aad ku raadsanayso adigu adduunka la ku hel wallahi inaanad ku liibaanayno channelkaas waxaa rajaynayaa ya waxaan rajaynayaa channelkaasi inuu wallahi billahi kaalmi doono ya oo waayi doonto because waa wax khaayinimo aad ku heshay war gabadhu goormay xumaatay Saudigii shalay intood halkan la soo fadhiisatay laha maxafso kala la ark maxafso kala la maqlay wanaagii shalay aad gabadhu ku sheegaysay goormuu durbadaad qaaday mise waxay ahayd gabadh aad marka horeba ogeyno da Yurubta kaaga timid oo iminka aad leedahay wallahi hadda gadaal waxaan ka ogaaday dabeecadeedan arko waxay noqotay gabadhan aan isaan facayn mise ehelkiina hadda la leeyahay reer hebelow miyayna shalay ogeyn markaad gabadha meesha la soo fadhiisanaysay warde Soomaali baanu nahay naga daaya beenta hala naga daayo wax gadmaaya oo sax oo soconaya hala noo keeno ya wallahi takala laakiin se waxaba aan la siyaabay waxaan la siyaabay ya gabdhaha Soomaaliyeed gabadh walaashoodo la xumeeyay halka inta la soo fadhiistaan iyada naag xuna iyada tan anigu halka afka ka soo marin maayo caayday sheegan dhihi maaye war waxaan leeyahay gabadhan haday xun tahay da inagana waxa qof ka soo hadlay wallahi qofkii xafsa ka soo hadlo dhanba xafsa waxay tahay ayuu yahay ya waay maxaa ku ogeysiye qofka xun hadaanad xumaantu ku jiro anad kula jirin adi maxaa ku ogeysiye حفصة حمانتي إذا هي حفصة وحي سميسة هي حفصة وحي قشية حفصة وحي قدية حفصة وحي ودتي
war adigu maxaad ku haysay ma diyaarad ma meeshay xabsa fadhiisatad adiguna fadhiisanaysay anaga beenta naga daaya ma garateen qofkii halka YouTube dambe soo fadhiisto wallahi billahi gabadha yar xabsa waxay tahay sheega waa qof xabsa ka dararo xabsa waxay ku jirto in leegi in ka badan ba sameeyay anaga nil hortaagan waana wax run ah waayo anu maanta markaan qof bil aadana caayayo xumaantiisa maxay tusay dad minis meeshu xumaanta ku sameeyay qofkaasi baan anigana taagnaa xumaanta waxaan u arkay because anigana xumaan la midaan ku jiray yaa la isdhantirin maxaa la rahaa hore Soomaalidu Maxamed waxay tiri shimbirkiisu la duulaa anu maanta markaan qof saaxiibada amba gabadh walaashay magaalada ay gulo nool markaan wax ka sheegayo de waan kula jiraa aniguna filinka dhigtaan aniguna dhigaa laakiin maxaa la yiri khasiis waxa la yiri xoolahaaga la siiyaa oo intayna iyadu hadlin ba anigu ka soo hormaraya waxa la heblaayo asaas laakiin wallahi marka heblaayo waxa ka sheegayo heblaayadaas kama fiicniyo waxay gasho dhamaan aniguna gala markaan qof walaalkaya aan xumiisa ka sheekeynayo dad minis qofkan xumaantiisa sidoo ku ogaatay sideedse ku aragtay adu miyaanad shaqo lahayn war waxa la hadlayo dhageysta wallahi dhamaan waxa la hadlayaan inta naag halka soo fadhiisatay xabso waxa ka sheegto ku dhamaan maanta halka kala hadlaya ma garateen xabsa inta xumaanteeda soo aragto dhan xumaanta xabsa de waxa meeshay wax ku sameeynayay baad iniguna la joogteen soo xagarateen ma gabdhow kala xishooda gabadha ka xishooda ya gabadh walaashaya oo niga yar xumaanta aad ka sheegaysiin ya bara ilmihiina laga sheegay waxa gabdho meesha social media ku jira wallahi illa xabad uun moojaane inta kale oo dhan waa gabdho la qabo ilmo leh oo mustaqbal ilmahooga u rabo salaadii tukada ambale ilaahu ilmahayga walad saalix iga dhig ya maxaa ilmahaaga walad saalix noqon oo wanaagsanaan adiga ayaa qof kale bil aadana sida u eegayo gabadh walaashay halka cawradeeda ka asturi lahayd ayaad halka soo bandhigaysaa heblaayo waa kan kale wallahi inaan adu ka fiicneen kama fiicnid waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkiisa markuu abuuray isaga ilaahay qofkii dambi ka galay ilaahay isaga xisaabinaya naftaada adigu xisaabi anu maxaan sameeyay maxaan gudaadhe hadda qof kaste oo wallahi inaga mid xumaan oo gala anigana ku noqotay qof insaan oo aanan xumaan gelin dunidan kuma noolo illa asxaabtii oo waliba badankooga wallahi ma ahayna nabi maxamed ayuu ilaahay halka intuu suurada alam nashrax ku sheego yiri sadrigiisa wixii xumaan haayo dhan baan ka saarnay laakiin inaga gabigeen insaan ma wadana insaan waa macsuum khalad qof kasta gal waalidkaaga khalad galay oo aniga khalad galay oo qofkay daawanaya khalad galay oo ka xabso ka soo hadlaya khalad galay soo xad garateen maaha marka hada halka la xishoodo walaalayaal adu xumaanta maalinta aad galeysay hadaana lagu arkin oo ilaahay ku asturo ku khabeeyay de xabsa haday labisato inay ra qurux badan ay tahay bilaayad kastii ay kastiba u rabo oo ida iskala hadlayso kama dhignay inay xun tahay kuwa badan oo guryaha ku jira oo wallahi billahi waxay ku jiraan xabsay ka badan tahay jirta soo xad garateen ma marka gabdhow halka la xishoodo gabadha walaashiina halka uga hiilin lahaydeen ya anu halkan qabiilna ka hadal qaadi maayo oo dad badan baa lahaa ninku naagta in sadruddin wuxuu xabsa uga noqday ya qabiilka ayaa waxa anigu qabiil halkan ka sheegi maayo gabdho Soomaaliya dad cadaan oo guursada oo nolosha mid ugu wanaagsan ku noolaada soo xad garatay maaha marka gabdho waxaan leeyahay sidan dhaama gabadh walaashiina oo maanta waxay ku dhaceen ha ku wiirsanina waayo bari adiga galaya soo xad garatay maaha anu maanta halkan waxa leeyahay xafsaay adduunkan wax kastaba waa la soo maraa qof adduunkan la dhibaaya hadaad aragto amba la xumeynayana wallahi waa qof daacada because hadii gabadhaas xabsa khaayimad ahaan lahayd amba isdaba wareeg ay garanayso amba xumaanta ay taqaano ninkan waxa ku dhiilaa saaxiib may rabtaa ha xiliyo xoolo waxaad ii haysa farahayga garid reerkeygana iga doon aroosna ii tun maalintu wuxuu xiliyo xoolo isagu u haysto de anigu ma malayn isagu hayste reerkooga uu ka soo qaaday ay faraha ku dhigtana ay aroos u sameeyana maanta intuu halka soo fadhiisto muu dhiheen xabsa wanaag baan u hayaay wanaag aad u hayso wanaag hadda aad u hayso ya guurkii aad kula haad uga ballan qaaday halkuu maray aaway maskaxda kugu soo biirtay ee maanta ku ogeysisay inay xabsa xun tahay amba sababta maanta aad xabsa uga tagtay anigu oran maayo xabsa xun ma garatay laakiin se waxaan ka rabaa walaal naga daa anagu waxaan go'aan ku qaadanay inaanan sheegin waxaan labadeed isku haysanay iyo waxaan ku kala tagnay wax ka soconaya maaha qof weyn baa tahay oo aqli la oo rabo bulshada inuu wax la wadaago waxa laga rabaa oo lagaaga fadhiyaa
gabadha shalay toole aad sariirteeda ku fadhiisateed cuntadeeda cuntay eed waliba halka inta la soo fadhiistaan waan garanay wallahi marka su'aasha la weydiiyo ee la yiraahdo goormaad is guursanaysin qofkii daacada wuxuu oran lahaa wallahi bisha waan is guursanaynaa maalin heblaayaan is guursanaynaa waxaan rajaynaynaa arooskayga inuu halka ka dhaco waxa baa noo qorshaysan kan kala noo qorshaysan asxaabi ducada nagu soo dara arooskayga ka soo qayb gala ayaan qudhaata ma oran goos wuxuu ahaa nin dan u socda dan buu u socdo video markay soo dhigaan wuxuu ku lahaa ku qor channelkayga Sadruddin halka ku qor si dadka ay u arkaan annaga aqli la laakiin xafsa qof wax jecel bay haydo aqliga uu ka maqnaa maalintaas ma garatay maantana xafsa may dhiman way nooshahay ma sha Allah ilaahu caafimaadka u daamaan leenahay tanina 10 uga dhig tanina 10 ha u noqoto laakiin Sadruddin aniga su'aasha aan ku soo weydiinayeen kaga baxaya videogayga waxay tahay waxaan ku yiri kow gabadha intii cisheed la joogtay waxaan ku yiri wax kasta oo leedahood cuntay caloosha inay ku qabanayso ana halka kaaga ballan qaadaya ku habaari maayo laakiin se ilaahay waa caadib oo u jeedaa qalbigaaga wixii ku jiro u jeedaay ilaahay ka soo bixiyo hortaad ka helay wallahi billahi kaligaana ma ahine qof kaste nin kasta oo gabadh yar oo miskiina oo waxaan ku yiri qalbigeegu daciif yahay oo moodaynin inuu jecel yahay nafteeda iyo maalkeegaba u dhiibtay oo sidaas oo kale u gala ilaahu waxaan leenahay calaamo ka muuji calaamad degdeg ka muujiyo cudur una sariirta uu ka kicin ilaahu ku ridbaan wallahi billahi leenahay hana u haysanina wiilal oo gabadh kastood xumaysaan inay nii ducaynaysa hamoodina wallahi hamoodina gabadh kastood ciishaan oo habeeno badan u sheekaysaan oo wanaag ka dhaadhicisaan marka dambana uga baxdaan salaad kastay tukato waxay ku leedahay ilaahu masiibo ku rid masiibadaasina way kugu dhici wallahi inay kugu dhici oo qalal adduunka dhexdiisa adoo socda ad sariirtaada ka kici kari waay wallahi waana la wada jooga wiilkaas hadduu gabadhaas daacad u ahaa oo de wax kale soo dhex galeen amba in waxaan yiri de wax ku guursado amba يعني دادي سيابة كله يعني الدونك إيه هذا يسوق على دحق شيء ويل كاي قبل دا قف كستيبه هرتي سهر الله إلهي يدنا ويل وناكسن هسيه إسنا قبل كله وناكسن هسيه لكن ويل كا والله بالله نيديس إلهي يسقى نيد أمديس أركاي ويل كان نيديس هذا كجرت قبل داسي channel كهكو فريسيسو أو شروط وكحرة هيد حفصة هذا جعشة جعيل كاجا إيه موجي أو أنت أنا كجورسن channel كاجا فريس هذا هيدنا إلهي والله أنا جاب قريب أو قفك قريب كدعدي سوا لا قبلاي أنا هبين يدرار أنتو حفص أدعيو هاد أركي دون تنين كاسو بابور لغوضة واللحديث الحاد وايي هاد أركي ويدان والله أنا قبلها يا مسلمين تا أو سومالي دي وحنا هاي بابينا هاد قبلها سومالي أوكي وايان وأدعين وايان سو حد قرتين معي أو قبلها ونين كاسو وحا كوسمين تو السوشيال ميديا وسوفريزيه anaga walaal gabadh kaste ninkeyga markuu wax ku sameeyo iska ciloonaysa laakiin waa wax iyada haysto oo waxaan ku yiri iyada soo ooyisa laakiin gabadha malaayiin intaas oo kun oo Soomaaliyiin tolo soo horfadhiisay atri waan jeclahay oo sida xabad ka u saaratay oo tiri xabsa maanta dabadeed soo fadhiisan manayso waraa qolkaad shalay lahayd ahaa xabsa hadii awal hore nii soo horfadhiisan jirtay kaligeed hadda kadib ni soo horfadhiisan mayso aaway war aw kartidii raganimadii ad shalay gabadhaas ad ku doonatay aaway laakiin samaahayn waxaad u jeeday waad cadeysay khaayin baad ahayd oo mid dambeed aaminto ba wallahi ku khaayimi oo inta xabsa ad ka jirtay in ka badan way ka jari aakhirana ilaahay kugu sugayaade ilaahay wuxuu yiri dambiga ad Allah ka gasho salaada hadaad tukan weydo hadaad ilaahay caydo hadaad waxaan ku yiri ad soonkiisa soo mi weydo ilaahay dambiga isaga laga galay uu cafiyay waa boqoro waxba isaga kama qaadisid laakiin si calool xumada iyo gabadha aad waxa aad ku sameysay soo xad garatay maaha ilaahay kugu dhaafi maayo ifkay kaaga soo bixi wallahi ifkay kaaga soo bixiyo midda dambe waxaan ku yiri aad jeclaato ilan kulli bilaadan baad qofka bilaadanku wax uu jeclaaday qalbiga wax ku qabsada soo xad garatay ma qofka dambe aad jeclaato ayaa ka goyni waana loo fadhiyaa يا سومالي دمان ما يسوع علم ما هو لو ضجوري معي أنا جهدو ود كنا قاعدون دمنه إم بدن أيها الكافر ده وكسر جدًا سدرودينو هذا فيديو جي أنا نديرين والله وأنا على سنة لكن سواء حن كجب حياة فيديو جي وحن كسر حريا يوم ليه قبضوا إسكو هيليا قبضوا صدق إسكو داما قبضوا قعمها إسقب صدا
يا وان أجنها قلبك قبضها إلهي با يروى عاطفيين وضد أسميسن إنه يقفك كلو ناجيان أو تعايل أسميسن قفل جعليه قلبي وسجبنا وانا قانا ضمر وسدوي هاي واي نينك والله بالله واحد كستكو سميسو انتو سريرتا جيف سدو نيني اوي مايو لكن قبل ايضو انتدي كارينيسا ايضو مسقولك كجرتا ايضو صلاة تكنيسا باي حاسوسانيسا ويحي لغو سميه إلهينا يا ما انت يبريو كديني لكن سي عقوبة او كغالي قبرداس إنا يويلكا كسوا بحايسو يا أناقا كمرخاتيا وقت كان ينتوسي دونا انت فيديو حيقان كل من وحن لنا هاي دالينيرو waxaan leeyahay gabadh aan jecleen way lacagta waa la helaa lacagta waa wax la tabco ilaahay baana markuu rabo qofka siiya laakiin qof bil aadan qalbigiisa ha ku ciyaarina intaas waa iga talaa qof bil aadan oo ku jecel oo ku aaminay gabdhuhu wallahi billahi ilaahay baa siiyay qalbiga markay qofkii aragto laba habeen wax fiican u sheego wax islaada wallahi uu ku rabaay mustaqbal ka sameeyso laakiin dalinyaro waxaan leeyahay siiba nimanow allihiina ka baqa cuqubada gabdhaha ka galaysaan iska ilaaliya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.